إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هيا يا رفيق الدرب هيا نسلك النهج السويا في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبيا نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا يا رفيق الدرب هيا نسلك النهج السويا في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبيا نبعث الحب أريجا فائح العطر شذيا نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا وإخاء صادقا عذبا نقيا أريحيا يا رفيق الدرب هيا خذ يميني يا أخيا هيا يا رفيق الدرب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكره ilaahay baan ugu mahadinaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyo waqtigan iyo zamankan faadilka ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti fadli badan, saacado fadli badan, maalin fadli badan, bil fadli badan iyo goob fadli badan, intaasba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo kulmiyo. waa bil fadli badan oo waa bil ramadaan, waa maalin soon, waad sooman tihiin. waa maalin fadli badanoo waa maalin jimco ah, maalmihii ugu fadli badnayd. waa waqti fadli badanoo bacda salaat اlcasr, salaadii casar kadib weeye. waana waqtiga ay ugu rajo inay ku jirto saacatu lijaaba, inay ku jirto maalinta jimcada saacadda la ajiibo. walba muslima oo ilaahay baryaya wuxuu weydiisto adduun iyo aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo aanu celin, saacadda ugu rajo badan weeye sida culimmadu ay caddeeyeen. saacadaha ugu dambeeya maalinta jimco, wixii casar ka dambeeya ilaa qorax dhaca. waa goob fadli badan oo masjid ilaahay baynu fadhinaa inagoo fariida ilaahay subxaanahu wa tacaala gudanay. marka intaasoo afdaalaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo kulmiyo waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadiyo. allahuma laka alxamdu bilislaam walaka alxamdu bilqur'aan walaka alxamdu biliimaan. ilaahay baan subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa, ugu shukrinaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkana, inuu ilaahay naga aqbalo ducadana, inuu ilaahay naga aqbalo siyaamka iyo qiyaamkana, inuu ilaahay naga aqbalo. ilaahay waxaan ka baryaynaa dembigeenna iyo dembigii waalidiinteenba inuu ilaahay dhaafo, inuu ilaahay qoorteeda naarta ka xoreeyo, inuu ilaahay wejigayaga ka fogeeyo, inuu ilaahay jannaatulfirdows ilaahay noo qoro. qof walba muslima oo halkaas khayr buu ka soo doontay, wuxuu soo doontay oo khayrka ahaa, oo wanaagga ahaa, jannada ahaa, dembi dhaafka ahaa, inuu qof walba ilaahay siiyo, inuu qof walba ilaahay waxaa niyadiisa ku taagana khayrka ilaahay siiyo. siduu ilaahay halkaa noogu kulmiyana jannaatulfirdows inuu ilaahay nagu kulmiyo. kuwa ilaahay dartiisu kulmana ilaahay naga dhigo, camalkeennana camal saalixa ilaahay ka dhigo, waqtigeennana waqti ilaahay loogu cibaadaysto ilaahay ka dhigo. ummadeenna iyo dadkeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto. dhammaan inta muslimiintana ilaahay u naxariisto, meel kastoo ay joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto. dalal badan oo muslimiintu ay ku dhaqan yihiin ayaa hadda dhibaato haysataa, oo dadku guryahoodii ay ka maqan yihiin, oo maaragtay ay qaxayaan,
oo dhibaataysan yihiin iyaga iyo ehelkoodii laga yaabay inay kala lunsan yihiin. Wadamo badan baynu ognahay inay ka taagan tahay dhibaato iyo dagaallo oo waddankeenu ugu horeeyo Soomaaliya, oo ay ka mid tahay Yemen, oo ka mid tahay Liibiya, oo ka mid tahay Suuriya, oo ka mid tahay Afghanistan, oo ka mid tahay dalal badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ee dhiban dhibka inuu ilaahay ka qaado baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa. qof kastoo muslim ah oo dhiban dhibka inuu ilaahay ka qaado, kii qaxaya inuu ilaahay dhulkiisii ku simo, inuu ilaahay dhulkiisa nabadgelyo iyo ammaan ilaahay ku siiyo, iyagiyo ubadkooda inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhowro. ilaahay kan gaajaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala gaajada ka qaado, kan nabadgelyo la-aantana nabadgelyo la-aanta ilaahay ka ugu bedelo, ammaan ugu bedelo. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa guryahoodii iyo dhulkoodii ka qaxayna ilaahay nabad iyagoo ah guryahoodii ugu celiyo, hantidooda ilaahay nabad ugu celiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanka iyo fitnada iyo imtixaanka ilaahay ka qaado, ibtilaaga inuu ilaahay ka dulqaado, inta muslimkaayo dhan inuu ilaahay ka dulqaado, gaar ahaanna dalkeena iyo dadkeena inuu ilaahay ka dulqaado. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa ilaahay uu naxariisto dadka Soomaaliyeed oo dhiban, oo badda iyo beriga iyo baxarkaba ku dhiban, inuu ilaahay u naxariisto, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ka dulqaado, inuu ilaahay dhulkooda iyagoo nabad ah ilaahay uu ku celiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala taacadiisa iyo kitaabkiisana ilaahay waafajiyo, towbadana ilaahay waafajiyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala towbada iyo towfiiqda ilaahay uu waafajiyo. kelimadayda walaalayaal waxay ku saabsan tahay insha allahu tacaala qowl llahi tabaaraka wa tacaala in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إلهي سبحانه وتعالى أدونك وحو أدجيي خلقي سمركو أبوري سنوين بو إلهي سبحانه وتعالى أدجيي سنوينكو وودوين هي قانون هي النظام للراعوي. قالنا سبحانه وتعالى وحير سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة إلهي سبحانه وتعالى خلق ليس وكرقه وكم معمله اسبدل ماله اسم بدشو معنى إلهي وعادل وعدالة دميسترا كامل marka qowmna inuu si ku maamulo qowm kalena si kale ku maamulo ma dhacayso. qaanuun buu u dejiyey, cadaalad ayuu wada marsiiyaa alla subxaanahu wa tacaala. sunnadaas way marka waxaan isbedel yahayn. markuu ilaahay ka sheekeeyey taariikhihii hore ummadihii wixii ku dhacay ayuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi walan tajida lisunnati llahi tabdiila walan tajida lisunnati llahi taxwiila. ilaahay sunnadiisu isma bedesho. oo maxaa ka mid ah inuu daalimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u halaago, dadka amarkiisa ka baxa ee macaasida sameeya in cuquubadeeda ay dhadhaminayaan, dadka wanaagga sameeya oo cadaaladda fala inuu yan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku halaagin sida kuwa daalimiinta u halaag, oo caadilka iyo daalimka inaanu isku si alla subxaanahu wa tacaala u wada dhiqin. dadka ilaahay u noqda oo ilaahay dembigooda uga noqda oo uga toobad keena, iyo kuwa laga waayo toobadkeenka iyo noqoshada inaanu ilaahay isku si u dhiqin, ee kuwan toobadda keenana la aqbalo oo dhibkay ku jireen laga saaro, waxay ka toobad keeneen laga bedelo. kuwa toobad keeni waaya
kuwa diida oo amar diidada sameeyo cinaadka sameeya waxay doorteen lagu qaado sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka sidaas bay u dhigan tahay oo aanay isbedelin. waxayna ku saabsan tahay aqwaamta ummadaha iyo dadka. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin, qowm waxay ku sugan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kama bedelo. aayad kaletana waxa weeye dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. lam yakun mugayiran kama bedelayo nicmo ay haystaan nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. marka ilaa ay iyagu wax iska bedelaan ilaahay kama bedelo kamana qaado. marka dhib haystayna lagama bedelayo haddaanay isbedelin. nicmo ay ku jiraanna lagama bedelayo haddaanay isbedelin. arrinku marka wuxuu ku soo ururayaa maa bianfusihim. maa bianfusihim, dadkan naftooda ayaa wixii gudahooda ku jira ayaa waaqicooda iyo noloshooda ay ka arkayaan. wixii gudahooda ku jira, laabtooda wixii ku jira iyo naftooda gudaheeda ayaa noloshooda iyo waaqicooda u noqonaya. haddii gudahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ogaado oo ka arko wanaag iyo cadaalad iyo ilaahay u mahad celin oo shukrin, hadduu ilaahay gudahooda ka arko noloshoodu saasay noqonaysaa, wanaag bay noqonaysaa. wanaag buu ilaahay uga dhigi. haddii gudahooda ilaahay subxaana wa tacaala uu ka arko oo waxa gudahooda ku jira uu noqdo xasad iyo cadaawad iyo bakhaylnimo naftooda ay u qabaan, noloshooduna saasay noqonaysaa. marka idinka idinku xiran tahay wey. ma wanaag baad dooneysaan? ha idinka idinku xiran tahay, noloshiinay ku xiran tahay. wax ma ka bedeli kartaa naftiina? haddaad naftiina wax ka bedeli kartaan, waxa aad dooneysaan baad helaysaan. haddaydinaan ka bedeli karin waxaan gudahaaga ku qarsoon, ilaahay kama qarin kartid. dadkaad ka qarin kartaa. dadka waa bani aadamka, waad ka qarin kartaa, laakiin ilaahay kama qarin kartid. saas darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala, bal hadda u fiirso, yani dadkii muslimiinta ahaa, mu'miniinta ahaa ee hore, asxaabtii markaynu ka soo qaadano, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu eegay qulubtooda, nufuustooda ayaa isbedeshay. waxaa bedelay iimaanka, waxaa bedelay qur-aanka, waxaa bedelay allaha rumayntiisa say u rumaysan yihin oo dhab ah, oo daacadnimada ayaa noloshooda bedeshay. waxay ahaayeen fuqaraa, ilaahay qani buu ka dhigay. waxay ahayn dad tabar daran, ilaahay xoog buusi. waxay ahayn dad dhulku cariiri ku yahay, ilaahay dhul wasaca buusi. adduunkii buu ilaahay u furay. mulkigana ilaahay baa hay, adduunyadan ilaahay baa gacanta ku hay. maalintii ay joogeen maka ee quraysh ay soo cadaadisay, muslimiinta ay ka soo baxeen, ee madiine u soo hijroodeen, kadibna madiina ay ka unkadeen dowlad yar iyo maamul, ilaahay dartiis bay usoo hijroodeen. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu hijradaa ku xiray daacadnimada.
daacadnimada. xadiiska macruufka mashhuurka ah النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته ما نقانا ما كلا نقانا معناه صار إذن ما كلا قرنين إلهي بأن يدينا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قفك هجرتيسو تهي إلهي إيه رسول كيسا عليه الصلاة والسلام إنوسو هجرته فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كي الدنيا دونيي الدنيا تا هجرتيسو كي آخر إلهي دونيي سدا سيطهي maalintii la yimi xudaybiya 6 sano kadib oo ay quraysh iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiiyeen oo heshiis la kala saxiixday 10 sano dagaalka inuu joogsadaa kadib ilaahay qur'aan buu kusoo dejiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam muslimiinta waxaa loo ballan qaaday غنائم فربضان يدرل أي فرن دونان أو هلي دونان هير ويرى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حوله يقوه الريان يرى وحيد خيبر دول كينا وقف بقدره مركو النبي عليه السلام لا تشهد إلهي سبحانه وتعالى مركي آياتها سورة الفتح وبسود الجيش وحويري لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها إلهي وحرى لك النقضي مؤمنينتا أصحابتي وي oo goorma waliba xaal ay kula beecagalayaan geedka hoostiisa kula beeconayaan waa dad gaar ah dadkaas aayadu ku socoto waa dadkii beecada la galay nabiga calayhi salaam ballanta adag la galay inay naf iyo maal diinta u hurayaan bay la galeen marka ilaahay wuxuu leeyahay khabar isagoo akhbaartooda nooga warramaya nimankaas qulubtoodii baa laynooga warramaya nufuustoodii baa laynooga warramaya waxyaalaha qur-aanku cajiibka la yahay wey yaa kaaga warrami kara dad mucayan oo hebel iyo hebel iyo hebel ah naftooda waxa ku jira iyo qalbigoodu sida uu yahay yaa ka warrami kara aan ahayn ilaa callaamu lghuyuub إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قلبي قوذا وحا كجره ينفتوض إلهي أقاد فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا غريبا ومغانم كثيرة يأخذونها ما في قلوبهم مركا إلهي وحو أقاد قلبي قوذا وحا كجره إخلاص إيمان iyo daacadnimo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ogaaday qalbigooda intaasoo dhan baa ka buuxda qalbigooda saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli uga noqday saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo dejiyey sakiinadiisa iyo malaa'igtiisa iyo naxariistiisa sidaas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala u siiyey magaanin badan iyo xoolo badan oo adduunka ay qabsan doonaan iyagoon weli bal xataa waxyaalihii ayan awoodi karin oo iyagu awood u lahayn wax haba yaraatee awood ah aanay u lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u qabtay wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala wa ukhraa lam taqdiruu calayha qad axaata allahu biha وأخرى لم تقدروا عليها
يعني إذنكم وح أود أو أد هيسان ما جرتو هبيرات لول لقب سنة حول لقب سنة الدون دن لقب سنة أو أيدنا تبر هين هبيرات لكن إلهي سبحانه وتعالى ويدين قد أحاط الله بها انت أصلا وحلقوها لي وحوية نفوسها قلبي له اسبدلي أو إلهي سبحانه وتعالى ضاعد نمو هي إخلاص هي آخر الدون هي إيمان أي ضاعت كيهين والدنيا كفر حشين أي إلهي سبحانه وتعالى كوبه ساسا إلهي سبحانه وتعالى انت سا إلهي كسي نفوس مركا بني آدمك أي سعادة ديسة إيا وناقيس كحرانتاي سيدة إياد إذنكو يصور لكتان أياد هليسان إلهي سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء هدون كي يبوحوا إما ليستو بانوها إما ليستو بانو أو دونها ما ليستو دا خير بليستو خير بدهلي دا شر ما ليستو أنا شر بدهلي بعض أرك هي لباتو مركا النفوس دا إلهي سبحانه وتعالى وحقول الرقم إياه سيدي يدو حالة قابشو تصاليك له وحوية يعني دون كان سعادة إيه وناقة إيه خيرك بني آدم كأوج عليه إلهي سبحانه وتعالى وحكو قصينا يا نفوس هذا سيدا أي نقطه بل هذا أفرسو يعني وإلهي سبحانه وتعالى نوغا شيكي أمضى إلهي أوسيي نعموين يا وناقي خير كما بدلين خير كاس إلى إياغا وحسك بدلان الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قرية وديغان ومقالو وضد آمنة نبتقليو هاي ستار نبتقليو وصعطا دول كاس قريضة نبتقليو الله صعدا مطمئنة ودقنت وحصلت يأتيها رزقها رغدا رزق قيدنا وحيها شاء سقا أو فضد وليبه oo aan dhib laga arag min kulli makaan meel kasta iyo jiha kasta bayc mushtar laga keeno meel kasta arzaaq meel kasta ka timaada ayaa timaada oo taal maxaa dhacay marka fakafarat bian'am illah فكفرت بأنعم الله ويكو كفرسي يا كفريي dadkii magaaladaas tuuladaas loo nixmeeyey nabadgelyada la siiyey ee arsaaqda la siiyey dhulkooda laga siiyey ayaa isbedelay way ku kufriyeen nicmada way ku shukrin waayeen way ku kibreen ولا بدل ما بدل به فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
bima kaanuu yasnacuun. ilaahay wuxuu u labisay oo dhadhansiiyey wuxuu ilaahay dhadhansiiyey labiskii gaajada iyo nabadgelyo la-aanta iyo cabsida. weliba waa loo labisay, waa loo gashaday sida qamiiska ay u gashadaan oo jirkooda u taabanayo oo ugu jiro oo u labisan yahay oo meelna aanu uga harihayn qamiiskiisu ayaa gaajaduna u labisan tahay. wax qani yeeli karaa ma jiraan, wax qani yeeli karaa ma jiraan. maxaa dhacay? gaajuuba labisan yahay isagoo dhanba. wuxuu labisan yahay nabadgelyo la-aan, ka hari mayso. sidaasay ula socotaa. waa halis wey. oo maxaa u sababa? waxay sameeyeen baa u sababa. maa kaanuu yasnacuun. marka waa aayaddii sunnadii aan sheegnay oo ilaahay nicmo uu qowm siiyey kama bedelayo haddaanay naftooda wax iska bedelin. naftooda wax iska bedelana macaasi inay la yimaadaan bay noqotay oo ay ka tagaan. annaga waxaan soo marnay dhulkeena hadda dhalinyarada iyo dadka yaryar iyo taariikhda aan akrin laga yaabe inay soomaaliduna wax ma qorto oo wax looma qoro ajyaasha soo socota ama generationada soo socda iyo inay wax ka ogaadaan. dadka da-aada yar ee maanta 30 jirada ah 20 jirada ah yacni wixii dhacayay dhowr iyo 20kii sano u dambeeyey taariikhdeeda intii ay indhaha ka arkeen bay yaqaanin. wixii ka horreeyey ma garan karaan. dhulkan maanta lagu tusaale qaadanayo gaajada iyo dhibaatada loogaga tusaale qaato adduunka oo dhan oo sanad walba dhexaysa. maalin dhaweyd nin baa wuxuu lahaa tv-ga CNN inay ahayd baan u malaynaya mase maaqaan weriye ah 21 sano ka hor mowqifkii aan ku arkay Soomaaliya oo ah dadka gaajada u dhimanaya ayaan maanta bacda 21 sano haddana aan u jeedaa. waxay iskama bedel 21 sano. marka ninkaasu in qur'aan yaqaan ma aha. isbedeladu waxa ay ku yimaadaan nin qur'aan loogaga sheekeeyay ma aha. laakiin wuxuu arkay wixii uu isagu u jeeday. maxaa dhacay? xaalad isla bedeli laadahay buu leeyahay isagu. 21 sano saanay ahayd oo waxaan u imid dadka baydhabo iyagoo dhimanaya oo gaajo u dhimanaya. bacda 21 sano meeshii bay taagan tahay hawshu buu leeyahay. maxaa dhacay? isbedel ma jiro. isbedelku muxuu ku yimaadaa? isbedel sidiis muxuu ku yimaadaa? isbedel wuxuu ku yimaadaa dadkan inay wax iska bedelaan. dadkan inay wax iska bedelaan ayay ku timaadaa. marka aayaddan hadda aan soo akrinay ee suurat an-nahl ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qowm nicmuu siiyey marar badan ayay aniga yani waxaan u arkaa aniga inay la hadlayso shaksiyan mar kasta oo ay soo marto
سورة أما آيات وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان موجودة لأنني مرحلة داسان أركي تولديدي iyo beledkaygii anoo ku nool ayaa aayadaasu ila hadlaysa ilaahay uu nagu siiyey amni iyo nabadgelyo iyo risiq jaban marar badan in dhalinyarada looga sheekeeyo way tahay waana taariikh waxaan ku iri mar aan muxaadaro maalin dhaweed ka jeedinayo meel 2 shilin ayaa qofka mutawassidka ah dhexdhexaadka ah middle classka ah masruufkiisu ahaa Muqdisho 2 shilin maalintii dhan all the day una dhargi jiray waa 2 shilin can you imagine 2 shilin qofka dhanna bishii mushaharkiisu yahay 80 shilin ama 100 shilin odayaashu way yaqaaneen laakiin dhalinyaradu ma laakiin waa in la isweydiiyaa odayaasha laftigooda waa in la isweydiiyaa maxaa dhacay maxaa isbedelay waxa weeye magaalada habeenkii masalan haddaan nimaano waad iska gaajaysan tahay hal waxaad haysataa shilin iska dhaafe waxaad haysataa 2 kumi hadda wax la yiraahdo ma jiraan iyo shilin iyo waxaas waa waxaydinaan maqal waa waxaad dhegta ka maqasheen laakiin you did not see it ma idinaan arkin waxaad aragteen ma shilin miyaa aragteen Soomaaliya 1 shilin Soomaali ma idinaan arkin ma soo gaarin maxaa dhacay waxaad soo gaarteen iyadoo 1 shilin warqad ah wax ka yar ma aan jirin dadku soo badnaayeen soo لكن أنا وحنا الله يا شلين واحدة هل شلين كلية ما هي شلين كي كومي بنكال سنت كذا طيب وهالكن مريكن كهذا يدون كان سنت كتورتان مدو بارا كتورتان ميلا كتورتان بينيجا ميلا كتورتان بيني أيا وحكو عنو جرني كو عشين جر كومي 2 كومي يا خايدة تك حوغا مرقة أو وحير هتكو قادته موسكا توبيتان انت لك ما وحطوانا كومي يا هبينكي لغا كلا تغايو يا هبينكي مركا سوق لغا كلا تغايو سوق خضارتا ساسا لو يبين جري موسكا هي حب انت صورنا حطوبا marmarka qaar koodna bilaash bay nimanka meesha haysta mar haday suuqi ka kacayaan si uu alaabta u xiro uu leey qaado iga qaad markaas xantoobo moos soo qaadanaysa xagee adduunka xantoobo moos laga helaa or supermarket-ka giant ka soo gal xabad moos dollar lagu dhihi $1 انت انا سوق هذا نعم خايد ماشان ku taala baqada iska tagaysa 5 xabo muufaay kana maraqaaga ku jabsanaysa mooskaaga ku jabsanaysa waa dhamaatay biyaha cabaysa waa dheertay isma weydiinaysa subax walba waa fresh subax kasta waa fresh yaatiha rizquha ragadan min kulli makan هذا المقشان آيات وحي كهالليسو تاسوا يأتيها رزقها رغدا صباح كستا موسكا وحلا كينا هل كان لك كينا جنة لك كينا أفكوي لك كينا سقو أو بسل أو ديار صباح كستا عانها هي مفضة هي ذكرتها
iyo mooska kulli subaxdii lasoo gelin lahaa hilibka diyaar kala qaado adig maalin dhaweydan waxaan u sheegay habeen dhaweyd qoloyn ba waxaan ku yidhi dhalinyaro ah 1972 baan waxaan diyaarad Somali Airlines ka soo raacay caluula meelaya iyo qandala لازم Somali Airlines baa jirtay waagaas ha Somali Airlines baa jirtay waliba tagta goboladaas gobol kasta tagta طيب hadayba tagayso diyaaradii yani magaalooyinka u yar yaraa degmooyinka u yar yaraa haday tagayso sidaas seeway magaalooyinka waaweyn oo Ismaayo Hargeysa Galkaayo de marka badan wiigi bay tagaysa hal marka badan ayay tagaysa طيب laba jeer saddex jeer waa yaraa 12 jeer 13 jeer camal baa diyaaradda la igu soo daray keligay tigid inta la ii soo gooyo diyaaradda la soo saaray looma biqin cunugan ama luma ama la dilaa ama meel ku dhacaa looma biqin tigidka la ii soo gooyo diyaaradda la soo saaray meelahan ma ku aragteen caruur yar yar oo diyaaradaha la saaro oo dad waayeel aan la socon oo service loo sameeyo ma ku aragteen airborada unaccompanied children saasay ahayd dalkayga saas waa 40 sano ka hor وجد أنا قبل وصل دراي مقالة إسكسو دراي عاصمة دي إيماناي إسكول راتسناي كلي كيس أنا عندنا لصق أو عن إيمي مقدشة أو عن وزارة التعليم تتجي أو صباح دي ورقد هذا أنت لقى قاضي إسكول كعرفتو دوكس كعرفتو قولي أقول له لو قرأ oo aan cid ku waasitaynaysa kula socon xasilin khiyaal ku hadlaan waalidka ku saxiixa ma ya waalidka ku saxiixa ma jirto waalidkaagi hal kan cid halka warqadahaagi wadata shahaadadaadi wadata waxaad u keenaysaa wasaaradda waa kan shahaadadeedii iyo waraaqahayga haye iskoolkee ku dhow xaafadee ku dhow lagu qoro iskoolka lacag keen bil walba ma jirto iskoolkaas ku baranayso bilaash marka aaminatan mutma'inna dhulkii hadda aan la mari jirin habeenkii waxaa ardaydu wax ku akhrisan jirtay banaanada jardiinooyinka iyo iskuullada banaanada habeenkii dhulkaasaa noo ahaa wax akhris meesha wax lagu akhristo iyadoo layrar kale oo nalalkii leh oo jardiinooyinka ay habaysan yihiin ayaad ku akhrisan kari jirtay adoo aan cidna ka baqayn 6 saac habeenimo 7 saac habeenimo soco saa doonto u soco meesha doontidna mar amnigana kaas way maciishadana taama فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وكاس مركا كي كلا إذن كوا أركتين oo in badan baa marxaati ka tihiin laakiin tan hore rabay inaan dadka qaarkiis wax ka tuso inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii ummadu isbedesho inuu ilaahay u soo celinayo automatically waxaa dhacay bima sana'u bima kaanu yasna'un baa dhacday taasana wax lagu bedelay marka sunnadan ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal ummadaha uu ku dhaqo waxa weeye wixii iyadu ay isu ogolaato wixii ay ku dhaqanto baa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaqaya qiso kale waxa jirta ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu kaga sheekeeyay qowm la siiyay nicmo iyo dhul iyo adduun isku furan oo ku filan waayay adduunkaas oo dhan ba ku filan waay cariiri uu ku noqday ya dhulkii inay kala ballaariyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay laqad kana lisaba'in fi maskanihim aaya
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا الهدفيري يا إعراضكم كيمي إيجو كيم حال سي جنوي بلد وناكسن سبع قالوا كان يمن بيكو الله markay icraadka sameeyeen oo ay diideen oo ku kufriyeen fa arsalnaa calayhim sayla alcarimi yaa soo diray daadka ilaahay baa soo diray daadku junuudda ilaahay buu ka mid dabayluhu junuudda ilaahay askarta ilaahay bay ka mid ciidamada ilaahay bay ka mid abaaruhu ciidamada ilaahay bay ka mid yihiin ma aha wax meel kale ka yimaada waa ciidamo ilaahay duufaantu waa ciidamo ilaahay roobka dadka baabi'iya waa ciidamo ilaahay dabayluhu waa ciidamo ilaahay kullu waa ilaahay ciidamadiis fa arsalnaa calayhim waxaan ku soo dirnay sayla alcarimi wa badalnaahum waxaan ugu bedelnay bijannatayhim jannooyinkoodii khudaarta macaan lahayd bijannatayni ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وح الله عنين باب اللوجو بالتلف والله طابن كريم هذا عي ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا أبل قلت كازو عيكو قاتين إن إلهي نعم يسكو كفريين أو ديدين اللوجو بالتلف وهل نجازي إلا الكفور مواعيد كان ساس الله قالها يريد إياه اسمه لكن كو كفرية نعمة أيان ساو قالنا طيب دين عسوا دين عنتظى إيه أرزاق ذا حقي أمانك أوكالي وحي الله سبحانه وتعالى قصدي إذا صعد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين يعني مرر أندرال كان مرايو الدنيا ذا كلاته أيام صح خصوصا آيات داس ويوصل على هل كان هذاك بحضه وبoston أسعته ما كلا جو أيوه لولكا اسكو حرام ولا دقيقة أنت بدل صهينا ما قادنا يقف سوسعدا ساسي هيد سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سبع وكسو تجي يمن إلى الشام واسكو حرنتاي تولوينكم مقالوينكم سمو قضاء وعاسو وحلة دمري معها وعاسمو قضاء قرى ظاهرة مدول مدك لأمو قطع maanta halku ka quraacan taasoo ka qadeen taasoo ka cashayn taasoo ka quraacan ilaa uu ka tago meeshuu u socday sahayna ma qaadanayo geeduhu xataa way isku xiriirsanaayeen balid iyo beera hoon iyo haraad male siiru fiha layaali wa ayyam aaminiin wa ku socda oo nicmada iyo ammaankaas qaata bale faqalu bal fiir jawaabtu ربنا باعد بين أسفارنا ودول كان ونقول صو كوكب مي نوكل فوقي إله نوكل فوقي باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ماشي نفرسه عقوبتي waxay noqotay dhulkii amaanka ahaa ay nabad ugu noolaan waayeen u qaadan waayeen waxay noqotay in la kala googooyo horta iyagoo dhan la jarjaro gabal laga dhigo gabalba meel lagu tuuro ومزقناهم كل ممزق قبل كان حقا كتور كان كلنا حقا كتور مشرق يا مغرب وكلا تور reerkii quraha 10 meelood loo kala tuuro halkii reer waa meel degan odagii mashriqa laga tuuro
habartiina maqrib caruurtii qaarna koonfur qaarka kalena waqooyiga laga tuuray ya qaar kalena meelo kale laga kala tuuray mazaqnaahum kulla mumazaq macnaha waxa sida loo jarjaro ma malayn kartid waay loo kala tuurto فجعلناهم أحاديث ومحي وضد لقول شاكيستو والله سيد السبع مركا عربت وحا مسألة هانجري تفرقوا أيدي سبع ومثل هل هايسو هل كدقوا قالوا مركا والله واكلا بالضي مركا لا واكلا بحضي واكلا قوقوضي واكلا بابعضي مركا لا يراهضو وحي عربتو تفرقوا أيدي سبع يعني سيدي سبع لوجو جوي بالوكالة توري يا ويلا تصالح الوسق قاتمات الصومالي ما كمل وحيدها عربت هذا صحافة ضحية الصوملة ورهر سوريا وها حنقول إنسان الصوملة صومالي وكله صومال ساسو أما حنقول يبي لك صوماليا زي هانجرتي يعني أنا كلا قوقعدان ليدين كلا قوقوي ولا يدين كلا تورتورو تفرق تسأله أحاديث تسأله إلها ضدكوا إن كل شيء كيستان ضدكوا إن يسوقاتان هل كدق إن يسوقاتان هل كدق إن ضدك النقطان فجعلناهم أحاديث وحدتكوا تصالح وسوقاتان وكل شيء كيستان أيان كدق نيب لي الله سبحانه ومزقناهم كل ممزق أرنك آيات باقصوا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حلو باهي مركا محوي هي مركا ولا ليال وحي أي وحكو النقدين وحكوها اللابين وحي وحكوها اللابين ولا يقان وحكوها اللابين ولا يقان وواضح ما إن ليس كإن دترو ما إن لقل لحظه ما إن ملك كلا يبورك كلا قرأ لجفو ما الدونك وحا هيو هدي لك يا نص صوماليا ما أنت هدي لك يا هنتدم تالا مريكان إيا آسيا إيوه أوروبا تالا هدي صوماليا لك يا صوماليا حول كان قوان كرت وح أي كقوان كرت مالا جرانتيوي ما هذا عاي dadka Soomaaliyeed bay ku xiran tahay Soomaaliya isbedesho dadka Soomaali la yiraahdo bay ku xiran tahay inay isbedesho meesha Soomaali la yiraahdo dad Soomaaliyeed baana degan adduunkan Ilaahay ummadu kala dejiyo shucuub wa qabaa'il halka dadka meesha degan ayaa la rabaa inay ku noqoto الكلمة صدقت توافقنا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحيالها كينية دبكن محوكو دعي اسبدلكم محوكو يمي اسبدلكم محوكو يمي تفرق اسبدلكم محوكو يمي ظلمي عي ظلمي بعد عي اسبدلكم محوكو يمي عصبيات يسحمن بعد عضي شح قالوا قالت شح محوية شح مطرح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نفوس توحي هذا شح هو بخيل نمو حيل دير أو نفط قفك الحج على كل جرته وأنا عدك لو حقوق لي عدك لو حقوق لي مركا ماشان دول وين ينعمو وين باتال سو ماها إلهي بقى قيب أسيي داد كان قيب إلهي أسيي قيبتي أيال اللي كان كري ويدي ويكون لنا كروي ما هو أركان إنه يكون في لنطا ما هو أركان ذاتك الصومالية ما أركان ما كون قناع سيين ذاتك الصومالية دوحا إلهي سيين إنه كفلين دول كان إلهي أقيبي إنه كفلين ما كون هذا قناع سيين ما يكون هذا قناع سك كون هذا قناع سنة ما حد عي كان هلكا كبولي هلكا قدولي ونقول قف كله ولا الكيس هلكا قدولي إمد كله هلكا كيس قدولي هلكا قدولي يا أوليه هلكا نقوم فلنا أنا قول كان نقوم فلنا إيجا كع
wartaad haysato ma ku deeqsanaato xagee u socotaa maxaad raadinaysaa waaba nagu filan tahay mid walba hadduu dhinac u jeesto maba is arkayaanba soomaalida dhulka ilaahay siiyey maba is arkayaan iska dhaaf inay isku qabtaan hadduu qof walba dhinaciisa u jeesto oo cuno maba is arkayaan maba isla hadlayaanba laakiin maxaa jira shuxi bukli baa jira ma rabo 1 kilometer inaad ii soo dhawaato halkaas aad joogto baan waxaan rabay inaad ku cunto xataa adiga wax ma rabo waa i dhibaysaa dhib bay igu haysaa oo maxaa dhacay dhib kugu haysaa waa shuxi nafteeda ku jira waay maaha in dhulkuna deeqi la yahay waa shuxi marka dad iyagu shuxi naftooda ku jiro ma gacanta haddaad wax u gelisay deeqaysaa ma deeqayso ma deeqi karto waa in naftooda wax iska bedelaan naftooda inay wax iska bedelaan waa in qof walba oo dadka ka mid uu ku qancaa dhulkan walaalow waa nagu filan waa nagu filan adiguna aad ku qanacdaa inuu nagu filan arzaaq ahaan inuu noogu filan nolol ahaan inuu noogu filan ilaahay inaan si fiican ugu caabudno oo cudno ayaa laynooga baahay oo maamulano bes wax kale loo inta inaan ku qanacnaa la rabaa ma ku qancayno anu waxaan rabaa wax oo dhan inaan qaato cid kale xumo ogoli reerkan sax waxay leeyihin wax oo dhan annagaa leh cid kale xumo ogoli reer quracna sidoo kale u qabaa bal markay sheekaysanayaan idinku ark markay sheekaysanayaan dadka Soomaaliya qabaa'il yihiin oo sheekaysanayaan qoladii meel ku shirta waxaad ii soo sheegtaan qolo isugu sheekaynaysa kaligeed markay shirayso inay qolada kale wax uga ogashahay meesha annagaa leh dhulkeeda annagaa leh beerteeda annagaa leh xoolaheeda annagaa leh saasay isugu sheekaynayaan kuwa kalena shir kale fadhiyaan sidaas ilaa isugu sheekaynayaan sida ugu heshiin waxba hambayn maayo ninka waxba ma ogola war waa nagu filan tahay ma ogola intaa qaado intaan qaatay ma ogola compromise male dhulkan maxaa lagu degan yahay aad u malaynaysan idinka dhulkan hadda aynu degannahay aynu joogno maxaa lagu degan yahay muxuu ku degan yahay soo dad wax isoo ogolma soo compromise ma qof wax u badanaya iyo qof wax u badanayna waa jirtaa wax jira waay nolosha adduunka weligeed ka dhamaan mayso adduunka sadbursi adduunka weligeed ka dhamaan maayo laakiin waxa la rabaa in wax la dhawro wax la ururiyo war adiga inaa wada weydo miyaa wax walba iyo inaa wax walba wada hesho waxba kaagama dhaxayaan miyaa wixii xaq aan u lahaa haddaan 50% helo miyaanan marmarka qaarkood raalli ku noqon karin maya wallay ka tahay ama 100% hala ii tiriyo ya ama la noolaan maayo dee waay anna sidoo kale ictiqaadsan isku dhimanayna marka isku baabayna waana sida inoo taagan hadda waa sida hadda inoo taagan dadka is hayaan maxay isku hayaan إما أنا واحد والبا أن وده حلو وإما أن وده واي لبضاد يوم مركب وينيان أدون كنا ثا إلهي كمدس بل النبي عليه الصلاة والسلام مركب دردار مي أنصار بولد على طارم وحيري إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها waxaad arki doontaan buu yiri gadaashay hadaan aniga ilaahay ofsadaan intu baad arki doontaan laydinka eexdo oo laydinka sad bursado baad arki doontaan waxa uu nabigu calaasha ishaarayana waxa weeye xoolihii iyo jagooyinkii baa laydinka bursanaya kale ma muxuu ku yiri marka muxuu kula dardaaran dagaalama ma yiri qaata wixiina xoog ku qaata مساجو كل تلي ما يقول ما تلي سيدا أقول أكسب كل تلي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض الصبر إلى أدي يقول كل أنتان
بركديدا أما حوضكيga أما webigayga aad igula kulantaan sabra talaabaha qaadina ansaartu waxay ahayn dad dagaalami kara soo dadka islaamka u soo gargaaray maaha soo uma xaqlaa laakiin muu yadii nabi waalid xoog ku qaad maxaa dhacay noloshaada kuma soconayso cadaaladii ilaahayna way ka dambaysaa marka adigu inta aad helayso qaado waa markay meesha ugu xumaato ugu dambaysa gaarto marka waxa wax ku isku bedeleen walaalayaal waxa way maqsuudka hadalka aan wadan leeyahay waxa wax isku bedeleen dulmi dhacay ummadaas markay is dulmiso ama dhaxdeeda dulmi ka dhaco ama dawladii ha dulmiso ama shacabku dhaxdiisa ha is dulmiyo dhibaato dhacaysa markii uu dhaco xasad iyo xin iyo la jeclo xad dhaaftay oo qof wax walba isagu isla rabana dhibaato dhacaysa shuxi u dhaco waa shuxiga wixii ummadii hore halaagay aanay waxba isu ogolayn markaasay dhiigoodiina daadiyeen xooloodii iyo naftoodii iyo maalkoodiina ay banaysteen taasuna way dhacday waagii horena waynu ka caafimaad qabin waxaa dhacay qabyaaladii oo xogsatay iyo casabiyadii marka dad casabiyad ay maamulayso oo xoog noloshoodii ay ka badatayna ummad ma noqon karaan ma dhismi karaan ma baaqi noqon karaan ma jiri karaan waxaan kusoo gabagabeynayaa isbedel waa daruuri haddii la rabo xaaladu inay isbedelaan isbedel waa laazim ummadda inuu ku dhaco afraadeeda ku dhaco dadkeeda wax fahmaya dadkeeda kale kullu ku dhaco waa daruuri haddaan isbedel dhicin wax isma bedelayaan xaaladda jirta isma bedelayso ama gidaarada hala fuulo ama buuraha hala jafo waxba fuulay waxba imanayso wax isbedel ma dhacay nufuusta haddaan wax iska bedelin haddaan dadku wax isu ogolaan haddaan dulmiga ayaan iska dayn naftooda ka waanin marka hore haddaanay shuxiga iska dhaafin oo walaalkaaga aadan waxba u ogolayn ma dhacayso marar badan baa tusaale usoo qaadna dalka soomaaliya ilaahay waxa uu dhigay iska dhaaf beriga walaaliya beriga iska dhaaf xoolaha iska dhaaf beeraha iska dhaaf walaalayaal adduunka wuxuu cunaa hadda oo uu cunaa dadkan cayrta ah oo gaajada u dhimanaya oo adduunka qaxootiga ugu daadsan dhulkoodiibaa adduunka in badani ku nool yahay oo cunaa mahanti la-aan baa marka haysa mahanti la-aan baa dadkaa haysa say u yihiin cayr bay qaataan bali cayr say ku noqdaan waaba dad aqniye ah hodanay iska dhaaf beriga iska dhaaf beerta xeebta ugu dheer africa soomaaliya 3,300 kilomitr baddaas keliya dad ka shaqaysta yurub keliya waxay ka qaadataa 300 milyan oo euro sanadkii oo kalluuna jabaan ha xisaabin kuuriya ha xisaabin thailand ha xisaabin united nationku ixsaayaadka ay soo saartay dhowr sano ka hor waxay tiri 800 oo markab baa waxay uga shaqaystaan sharci darraa 800 oo markab baa ka shaqaysta xeebtaas dheer oo xoolaha ka gurta dadkeedii baan beriga ku dhimanayaan waa dhimanayaan maxay ku dhinteen dhulkoodii iyagaa baylihiyey ma ogola inay nidaam u samaystaan isma ogola iyaga baan is ogolayn waxay leeyihin cadow baa dibadda nagaga soo duulay dad baana yeelay iyaga isma ogola cadow muxuu kugu soo duuli waayey haddaadan adigu is ogolayn adduunyadu weligeed ba saasay ahayd qoladii iyadu ismaamuli weyda dad baa maamulanaya oo kusoo duulaya weligeed ba saasay u jirtay ma eedaynaysa adigu cadowgaaga maxaad ku eedaynaysaa cadowgaygu muxuu ii qabsaday miyaa odhanaysa cadowgaagu ku qabsanaya shaqadiisii buu haystaa hawshiisii buu haystaa adaa hawshaadii qabsan waaye ayib yaa cunaya waxa dadkeedii waa gaajaysan yahin waa baaba'san yahin hal gobol iska dhaaf hal gobol
goboladan hadda waqooyiga bari iyo la yidhaahdo oo masaaxada ugu dheer ku fadhiya hal gobol ayaa wuxuu ka weyn yahay Switzerland iyo Holland oo la isku daray waa laba wadan anaga u qaxno hadda qaxootigeena uu joogo labadaba waan tagay xeriyay ku jiraan dadka Soomaaliya xeriyay ku jiraan qaxootiga bay ku jiraan Switzerland iyo Holland labadaba haddii la isku daro gobolka bari baa ka weyn ama gobolka Jubbada Hoose iyo xoogaa yar oo Jubbada Dhexe baa ka weyn labada wadan haddii la isku daro inta ay leedahay bad ma laha inta ay leedahay beer ma laha inta ay xoolo leedahay meeshaasu ma laha Holland qofka labada sac leh laba sac qofkii leh waa qani caana koostu kuu soo diraa iyo caana niido xagee laga keenaa ya isagaa ka keena adiga 120 neef baa wadataa waa daba joogtaa waa daba taagantaa ninka Seattle jooga la soo hadlaysa ala $50 ii soo dir sidee ku dhacdo ninna 3 neef 4 neef buu haystaa waa qani adiguna 100 neef baad haysataa waa cagacadahay waa qaawantahay waa gaajaysantahay maxaad xoolaha la joogtaa xoolo ilaashanaya tahay maxaa u ilaalisaa bal ka darane magaalooyinkaasaa tegaysa boosaasaa tegaysa Hargeysaa tegaysa Xamar baa tegaysa Kismaayaa tegaysa wuxuu ku oranaya caana koosta kugu soo cadaynaya wallahi la ilaha ghayr war caana koosta yala tag caana koosta igu cadaynaysa maxaa dhacay wadan xoolo ka buuxay waxa leedahay caana koosta kugu cadaynaya aw maskaxdaas feen aw qofkaas maskaxdiisa ya ambii baya babaygi baya furutadii baa taal wax walba ya mooski baya wuxuu ku leeyahay kastar baan ku soo qasay xun bahal laga soo qasay laga keenay oo boodar ah oo buda ah oo laga keenay meelahaas laga keenay wuxuu ku leeyahay faasida oo dhacday wuxuu ku leeyahay ku qasay waa ku qasay ruuxana adii keentay muxuu yahay waa kastar waa foster war kastar foster lahaane ikan aw bambeelmadi aw qari aw mooski aw alaabti ما يقع مسكين حجوم مسكين حصعدا ورن كيسو وتا نينكا هيبل بو كدوليا مسكحيدو ku shaqeyn la ma hayo aqligaas ma joogaba war meeshan hoos ma yartaayo ma ka shaqeysaa ma joogtaba marar badan wallahi walaalayaal waxaan ku yiri waad soo marteen Kenya waad soo marteen Uganda waad soo marteen Tanzania waad soo marteen ya 150 milyan baa ku nool 150 milyan webiga jiinkiisa Kismaayo kaliya laga quudin kara 150 milyan quudkooda ogaaliga ay cunaan halkaas ay keenaya oo waliba dahab ay kaaga gadanayaan dahab ay kaaga gadanayaan ma ujeedid webiga dhinaciisa ku dhimanaysa adiga waa dhimanaysa webiga dhinaciisa gaajo ugu dhaqtinaya arrinkaas ma waa cadaab ahay dayib qofkan aan garanayn oo miskiinka ah garatay kii maamulay aw kii u fikiray aw miyaan dad lahayn miyaan wuxuu fikira lahayn miyaan wax ka naxalahayn ka reer baadiye noqoy waaye waxa ma garanaay in la tusuubaan dhulku iska dhex jooga xooluhu iska dhex taagay ma yaqaano soo ilaa maamulo ma aw kii u fikiri la maamulna kii wuxuu bartay aw qof walba inuu isbedelo adigu isbedel umadu way hagaagaysaa adigu isbedel adigu caadil noqo naftaada ka cadaalad fal adigu ilaahay u toobad keen adigu walaalahaaga Soomaalida oo muslimiinta hanabcaanin bilaayaha u rajaynin ha kala gogoynin asabiyad ha ku kala saarin meel asabiyad lagu hayo lagu kala gogoynayo qayb ha ka noqonin reerkaaga haddaa dhex tagto ay aragto hawshaas inay hayaan waxaad tiraahdaa war ilaahay ka baqa wala dhimanaya
annagaa ugu fiican annagaa wax walba leh garta annagaa leh balaayo dhanna waa reer hebel ma soconayso ku dheh marka ilaahay ka baqa cadaalad sameeya innagay cadaaladdu inoo tahay nolol qabiilka naftiisay u tahay nolol inuu cadaalad sameeyo isagaa noolaanaya inta qolada kale khasbigiisa aanay ku noolaan marka walaalayaal qof walba oo inaga mide inagu aynu iska bilowno inteena halkaa fadhida majliskaa fadhida aynu ilaahay kula galno ilaahayna qulubta waa eeganayaa aynu isbedelno umuurteennuna waa isbedelaysaa awdaacdeennuna waa isbedelaysaa waana la dhimanayaa qof walnoona cidna ma khiyaani karti ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim marka wixii nafteenna ku jirta aan bedelno oo aan u bedelno toobad iyo ilaahay noqosho iyo daacadnimo iyo ummadda walaalaheena muslimka aan jeclaano oo kuwan inaga hadda qaraabi inala yihiin muslimka oo dhan aynu jeclaano oo khayrka la jeclaano ya oo cadaaladda iyo wanaagga aan raadino oo wixii dulmi annaga aan galno aan ka cudur daarano ilaa hadda walaalayaal lama hayo ummadda soomaaliyeed inay isu cudur daarato xataa war dulmigaana idinka galnay raalli naga ahaada weligeen ma maqlayno waxbaa la kala dhacay waa la isboobay waa la isdilay cirdigii iyo dumarkii baa layska kufsaday wax ka hadlay ma jiraan wax yiri waxa waa ka cudur daarana ma jiraan qolo walba mujrimiinteedii kuwii dembiga sameeyey kuwii gabdhaha kufsaday kuwii xoolaha dhacay kuwii baatilka sameeyey dadka laayay kilkiladay ku wadataa qolo walba kilkiladay ku wadataa halkaas uu yahay waa nin reer waana jaahiliyo islaam ma haystaan markaas nabi cali wuxuu leeyahay hadday joogi lahaayeen maanta haddii la igu yeeri lahaa waan tegi lahaa maxaa dhacay saan sheegnay sunnada ilaahay ka mid maaha muslin ahaw gaal ahaw dulmiga ilaahay ma garab siiyo cadaaladana ilaahay waa jecel yahay gaal iyo muslinkay ka dhacdaba ajarna wuu ku bixiyaa ilaahay subxaanahu watacaala gaalkana abaalkiisa adduunka lagu siiyaa muslinkana adduun iyo aakhira lagu siiyaa laakiin qof cadaalad sameeyey ilaahay kama dulmiyo ummadda haddii cadaalad samayso gaalo tahay ilaahay adduunka ku siiyaa waxooda deganaan iyo xoolo iyo adduun waxay iyagu rabeen baa la siiyaa adduunka maxaa dhacay cadaalad bay sameeyeen dhexdooda marka walaalayaal isbedel baa loo baahan yahay ummaddan soomaaliya isbedelay u baahan tahay isbedelka halkaan inuu ka bilowdo waayo annaga inuu naga bilowdo waayo annagoo dhan waxbaa naga khaldan annagoo dhan bay naga khaldan tahay aniga iyo adiga iyo isagay ka khaldan tahay ciladuna waxay ka jirtaa dad kale inuu u malaynaynaa in wax la rabo inay isbedelaan inagu laakiin inaynu toosannahay meesha qalad ka bilaabanayaan halkaas waaye annaga laftigeenna waa culimada odayaasha macallimiinta qur-aanka imaamiyada dadka shacabka dhalinyarada wax baratay rag iyo dumar innaga inaan isbedelno waay innaga qalbigeenna xaaqno waay qashinka iyo waxaa ka buuxa ka xaaqno waay ilaahay inaanu khaalis yeelno waay daacadnimo inuu ilaahay ka arko waay xaqa inaan u iilano waay jeclaano maaha reer hebel halkaasay nagu kala gogoynaysaa reer hebel iyo reer hebel halkaa inagoo taagan ogow oo soo qaxnay oo baaba'anay tuulo waxaan tegay Sweden bartamaheeda ku taala bal cajaa'ibka dhageysta dad qurba jooga oo Soomaaliya oo iyagoo dhanba jees way ba waxa la igu yiri magaalada waxa yaala khad cagaaran oo muxuu yahay khadka cagaarani xaggaas reer hebel baa degan dhinacaana reer hebel baa degan طبعا سويلش ما كلا يقانو صومالي باتاي ما كلا يقانو reer qurac iyo reer qasax ma kala yaqaan dhibaato hadda kala male isu tagna male baaba way marka caruurtii qaarna marka suuqa galaan qaarna xabsiga galaan dadkina la kala go'o ma ujeeda marka qolo wala ka fay marka walaalayaal halka inagoo joogna cuqubadii waa inala socotaa marka mazaqnaahum kullu mumazzaq iyo cuqubo ayaa ina saaran xaq ilaahay ah hadeynaan ilaahayna u noqon qalbigana saafi gelin aqligana wax gelin
ugu dambeyntiina waxaan leeyahay qolo kasta waxay doontaa isugu sheekayso qolo walba markay isu tagto ama community noqoto ama reer noqdaan ama jilib noqdaan qolka markay galaan waxay isugu sheekeeyaan waa ognahay inagu haddaynu reer hebelnahay reer qansaxnahay xaaladeennu waa fiican tahay saas iyo saasna inaynu yeelno waxaas iyo waxaasna in la yeelo qaarankaas iyo qaarankaas in la sameeyo waxaas iyo waxaasna in la sameeyo hay reer hebel sooma waa niman waa baaba'ay niman dhintay niman waxa weeye saas iyo saasa dhibkoo dhan iyagu ka socdaa iska celino iska hayno hangol iskaga hayno wey waxaan anigu u sheegayaa uguna bishaaraynayaa dadka saa u fekeraya ama PhD ha haysto ama mid hadda waran la ah oo ka yimi warankiisi wali wata ha noqdo meel gaari maayaan meelna uma socdaan dulli iyo takhalluf baana u dambeeya dal ka dambeeyo ay ku gaari doonaanna ma jirayo haddii saa ku sii socdo fikrad ummaduhuna adduunka ummado baabaa way jiraan oo aan warkooda la maqal taariikhda bashariyada way soo martay inagu kama noqonayno bid'an min dhalika islaamna uma dhutinaayo haddii la yiraahdo Soomaali ummad la oran jiraa jirtay iska dhaaf Soomaaliya ee Afrika waxa jooga 100 milyan haday tagaan islaamku uma dhutinaayo islaamna uma baaba'ayo adiga baaba'aya ada magac beelay islaamku ma tagay dad buu Ilaahay u soo saaran ummad buu Ilaahay u keensan ummado kale Ilaahay u soo saaran marka adigu dan ma isu tahayo ma jiraysaa marata ina jirto taas way su'aasha marka walaalayaal hadeen rab inaynu jirno waxaan hadda socdaa diinna ma aqlina ma waana waxaynu ku baabaanay bal dadkiina marka meelahan jooga war dhul waxa inaad garan weydo walaalkaagan muslimka inaad waxna isku waafaqi kartaan waxna isku diidi kartaan waxaas wax socon kara ma marka walaalayaal bal idinku hadda waxaad ka talisaan reer Seattle hadda tihiin intiina ku ekaada bal shaqadiina ka soo bax namuudaj u noqda Soomaalida kale u noqda example maxay idin diiday laakiin adoo halkan jooga oo kii Seattle kula joogay aadan rabin inaad iskaashi samaysaan baad waxaad leedahay mid jooga 10 bad gadaashood baan anigu isku qadiyadnahay oo isku reernahay oo isku halkinahay oo maxay iska kala ogtiin adiga isagu isku qadiyad ma tiidin isku meel ma tiidin marka walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى هلا قبقه هدي إلهي سبحانه وتعالى اسبدل نجار كنا أمورته إنه اسبدل ليس نسأل الله تبارك وتعالى وحن إلهي سبحانه وتعالى ويدي سننا إنه إلهي قلوبتنا إيمانك إلهي سبحانه وتعالى قصوه ألنا سبحانه وتعالى حقا نتصوه كوا رعنا نقدقه باطل كان إلهي نتصوه كوا كهرنا إلهي نقدقه توبتنا إلهي نقابله دنبقني دنبقي والدين تنبا إلهي دافه إلهي سبحانه وتعالى دينتي سفهم يفقه إلهي نوصيه الله سبحانه وتعالى ضنهنا iyo umurahana adduunka akhraba kuwa gartay inuu Ilaahay naga dhigo umada muslimka inuu Ilaahay dambigeeda dhaafo allana subhanahu wa ta'ala dibka iyo shidada Ilaahay ka dulqaado tilaagana Ilaahay ka dulqaado imtixaanka Ilaahay ka dulqaado barwaaqo iyo amaan amni Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bedelo sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi